عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan ka hadli doonaa afar shay oo u muhiimsan telefoonkaaga securitygiisa ama telefoonkaaga systemkiisa uu shaqeeyo inaad wax ka ogaato. Afar shay waxa ugu horeeya mid loo yaqaano brighter screen. Waxa ku xiga ka labaad oo ah auto factory reset. Ka saddexaad wuxuu noqonayaa optimize care ama device care. ka ugu dambeeya after wuxuu noqonayaa faster regulation ka asna wayna ka hadli doonaa mid walba wayna kor istaagi doonaa si waqti inoogu dheeraan toos baynu garanaa haddaynu ku bilowno ka koowaad oo ah brighter screen ka waxaan ka tegayaa qaybta settingska ee telefoonkaaga qaybtaas ayaan ku dhufanayaa deetana qaybta markaan ku dhufto waxaan kasii doonanayaa meesha ay ku qoran tahay waxa loo yaqaano meesha loo yaqaano lock screen ma kasoo doorto hoos ayaanu sii baxayaa waxaa kasoo dooranaya qaybta ku qortay face recognition deetana biinkayga ayaan ka saaraya telefoonka noocuu yahayba deetana biinka markaan ka saaro toos buu halkaa i geynaya waad aragta halkan waxaa ku qoran brighter screen waxa loo yaqaano wuxuu kuu sheegayaa faa'iidadu kuu leeyahay increase screen brightness temporarily so your face can be recognized in the dark. wuxuu faa'iido leeyahay in uu kor u qaado ability-ga ama iftiinka telefoonkaaga marka tan wuxuu ka caawinayaa weji haddii telefoonka uu leeyahay aad wejiga iskaga firi karto leeyahay face recognition uu leeyahay marka in adoo habeen ku jira meel madow ku jira telefoonkaaga waxa loo yaqaan uu ku aqoonsado oo aad biin ka firi karto ama mararka qaar oo telefoonkaaga fast recognition ku sameeynaya uu si degdeg ah markiiba u furo waxa laga yaabaa maanta oo dhan hadii ku dhafo face-kayga fur ama wejiga gamcaaga ay qoyn yihiin waxa laga yaabaa marba inaad tiraahdo meel cadaan igee meel madow igee waxaan igee habad meeshan jooga marka laakiin kan meel cadaan uu kaaga furaya fast gibisu waa si degdeg ah kaaga furaya marka waa inaad open ka dhigataa oo aad furataa koobaad wuxuu ahaa fast wax loo yaqaan breathing kaas oo ah faster isagoo noqdo faster screen ka inuu ku sameeyo oo si degdeg ah kugu sameeyo isagoo faster screen kaasna waan ka hadli doonaa ka labaad ee ku sii wuxuu noqonayaa auto factory reset asna waxaan ka galayaa qaybta settings ka deetana lock screen ka sii dooranaya lock screen ka marka sii doonto waxaa ka dooranaya secure lock settings inta marka ka soo biinkaygaasna ka saaraya biinkayga waa secure okay biinkayga marka ka saaro waxaad aragtaa in halkaas ay ku qoran tahay auto factory reset muxuu ka caawinayaa wuxuu leeyahay after 15 incorrect attempts to unlock your phone it will be reset to factory and default settings and all that will be erased include files and download apps marka waxa waaye waa inaad halkaas ka xidhaa kumelihi auto factory-ga furo waxay ku leeyahay marka aad 15 khalad aad sameeyso aad isku daydo oo telefoonkaaga midna qof caruura ka qaaday telefoonkaaga biinkiisa mu garanay dadna biinkiiba ku celceliyo 15 jeer markuu biinka ku celceliyo telefoonkaaga si temporary ah ayuu biinka uga jabaya deetana waxaa ka baxaya dhammaan fayliskii iyo programmadii iyo apps-kii aad soo dhoongaraysatay way ka baxayaan hab sidii telefoon la restore gareeyo kor noqonaya marka waa in aad iska xidhaa qaybta telefoonka loo yaqaano auto factory reset waa in aad iska xidhaa because waxa waaye telefoonkaaga ay dhaawac u geysan kartaa macna waxa weeye haddii tuu ka xado waa laga faa'iideysan karaa sidii biinka loogu celceliyo 15 jeer marka biinka lagu celceliyo ayuu biinka jabaya marka qaybtaas haddii open kugu tahay waa in aad iska xidhaa close iska tiraahdaa qaybtaasna waxay auto factory reset qaybta saddexaadna waxay noqonaysaa optimize care ama device care hoos baan u soconayaa telefoonkaas mar walba waxaan ku dhex jiraa telefoonka settingskiisa ku dhex jiraa deetana hoos baan u soconayaa hoos marka soo socdo halka waxaa ku qoran wax loo yaqaano device care ka saa ku dhufanaya optimize baan leeyahay marka dhammaan bulgaramidii meesha igu jira wuxuu oranayaa optimize buu igu sameeynaya waxaan diraa optimize it ma fahanti dhan baan isqornay marka wuxuu ku optimize garanayaa alaan bulgaramadaada iyo batterigaaga inta saac marka batteriga inta saac oo leeyahay waa isticmaali kartaa kale 16 saac ayuu ku leeyahay storage-kaaga intaan ka isticmaalayo kale security oo deactivated ah ayuu marka wuxuu ku optimize garanayaa bulgaramadaada kugu jira importance-ka ka ugu dambeeyo wuxuu noqonayaa faster recognition waa anaga iminka ka hadlaynay faster recognition wuxuu noqonayaa in telefoonkaaga aad si degdeg ah
waxa loo yaqaano waxaan ka istagay meesha log screen-ka haddana waxaan ka dooranaya ku qoran tahay wax loo yaqaan face recognition binkan ka saaraya deetana waxaa la ku arta meel ku qoran tahay faster recognition aniga waa imika waan xidhay laakiin faster recognition muxuu kaa caawinayaa doon asagu waxa weeye si degdeg ah in screen-kaaga uu furmo marka wejiga kaga furayso marka wejiga kaga furayso okay after faster recognition improves speed but reduces security, increasing possibility of video or image being incorrectly recognized as your face marka si degdeg ayaa telefoonka wuxuu kaa caawinayaa horta xawaaraha ama speedka telefoonka aad kaga furayso wejiga laakiin wuxuu hoos u dhigaa waa lagu leeyahay security-ga hoos u dhigaya xalka yaaba in markiiba aliya security-ga lagu helo wejigaaga intii lagaga furto oo video qaar lagaga duwan karaba ay keento waxyaala incorrect marka incorrect face marka qaar weji qalad ah in lagaga furto kale ama look like your face in lagaga furto kale marka kaasna wuxuu noqonayaa asna oo facial recognition kasna wuxuu kaa caawinayaa haddii aad la dhiban tahay oo isleedahay waxa loo yaqaano marba maybe inaad make up iyo waxa isticmaalaan dumarka oo ay wejigiisa hore u aqoonsan waayay Facebook wax loo yaqaano Facebook intana oo markaad make up dumarka isticmaalaan because waxa uu isbedelayaa wejigeeda waxaad arkaysaa qof dumar oo make up isticmaashay wejigeedii ay ku leedahay imika waxa iska soo furaya marka face-kayga uu iga furmaya marka aan make up iska taatiro because waxa waaye markii ay Facebook ku xidhanaysay ama face recognition ku xidhanaysay waxa loo yaqaano face recognition-ka ma ilahayn make up laakiin marka make up qarsaday uu ka diidaya laakiin hadday isticmaasho face recognition it's easy to unlock way fududahay marka insha Allah inta baynu uga eegay maanta 10